warbaahintii oo dhan isla qabsatay waxaa la yiri maxay tahay sidan arrintan maxaa kaaga mudan samaynaysaa waxay sheegtay in ay tilaab ka qaadi doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب ملك ساجوكتان سود وهذا وبرنامج كني دنجر شو قف كان الله سعون وبرنامج أنكسو قادنا ورر تلتال وهذا بدنع قار ليابله قار كلو قصل قار كلو سيريس أنت بلغو سوقاته مركب برنامج كوسو دو مركله هدي آذن سبسكرايب هاين سبسكرايب نو نقو هدا هوري نولو سعوتو سبسكرايب نو تاين وحن كلنا مركله سو دو naagtan waa madaxweynaha dalka Mexico waxa la yiraahdaa Claudia Sheinbaum waxay jirtaa 63 jir waay naagtan waxayna noqotay madaxweyne ka noqotay dalkaas sanadkii la soo dhaafay 2024 madaxweynaha hadda saaran waay naagtan madaxweynaha ah maalin waa laga yaabsaday meel intay soo istaagtay ee khudbo ka jeedisay waa aragtay madaxda markay khudbad jeediyaan dadkay u soo daadegtaan wayse salaamaan waa ma aragtay isku sawiraan dadkii ay u soo degatay inay salaanto markay khudbadii dhamaysay saasay u soo degatay iyadoo dadkii salaamayso la hadlaysa ninaa gadaasheeda soo istaagay oo shacabka ka mid ah ninkii waaba kanaaba isku malaasay naagtii gadaal ka qabso dhab gadaal uu ka qabsaday meel walba ka taataabo shushumis iyadoo dhan express habartii bobsis waa ka gaarsiiyay meesha dhexdeedii xishood ma jiro waa kana asagoo salaaxaya nimankii dhamaa oo bodyguardkeeda ahaa way taagin yihiin way daawanayaan cid wax ka qabatay ma laha intaas kuma ekaan waa kana sug muuqaalkan kale ma aragtaa naagta meel kasta isaga dhagan yahay wali waa ku dhagan yahay videoga idin ma hayo laakiin videoga hadda aragtiin waa naxaysan habartan waxa lagu sameeyay miskiintan madaxweynenimo xataa lagu macisaynin waa madaxweynihii dhamaayo dalka lagu macisaynin waa madaxweyne meel walba lagu dhagay iyada waa iska qoslaysaa way yaabanta waxa leedahay maxaa meesha ka socda way yaabanta waa qosol gariiraysaa miskiinta mar dambe intay soo istaagtay iyada iska fujisay gacanteeda isaga fujisay marka iska fujisay nimankii bodyguardka markaas yimaadeen ka qabteen marka iyada iska qabatay ninkii gadaal u kala tuurtay kadib ay yimaadeen ka qabteen wayna taagnaayeen meesha taagnaayeen waxaas oo dhan markay dhacayeen mucjizo noqotay arrintaas waa lala yaabay waxa la yiri see ku dhici kartaa naag dhan oo madaxweyne ah waa taqaanan warbaahintii oo dhan isla qabsatay waxa la yiri maxay tahay sidan Mexico maxay tahay madaxweyne dhan oo la isaga dhagayo dariiqa dhexdiisa maxaa way waxan naagtii madaxweynaha waa la wareysay waxa la yiri arrintaanay see kula tahay maxaa arrintan maxaa kaaga mudan samaynaysaa waxay sheegtay in ay tilaab ka qaadi doonto dalka Mexico sidiisaba tacadiyaal badan ka dhaca oo dumarka loo geysto dumarka tacadiyooyin badan loo geystaa waa la dhibaateeyaa adiga waxyaabo badan ka dhaca waxay tiri haddaan ninkan ka aamuso ninka waxa la sheegay markii la qabtay waxa la yiri waa sarqansan yahay oo qamruga cabay oo waxaas wuxuu u sameeyay ma bis ogeyn meel uu maray iyo wax noocaas laakiin sida ahaataba waxay tiri waa inaan tilaab ka qaadaa haddaanan tilaab ka qaadin waxay u ekaanaysaa tacadiyada wadanka ka dhaca oo dumarka loo geysto inaan anigana raalli ka ahay ee u ekaanaysa arrintan marka haddaan ka aamuso micnaha waxay u ekaanaysaa inaan aniga raalli ka ahay tacadiyadaas sida daraadeed waxa waa inaan tilaabo ka qaado marka ninkan hadda waxaa u soo la sugayaa tilaabtii laga qaadi lahaa waa la soo qabtay tilaabtii lala sugayaa laga qaadi lahaa waxay noqoto intaas waxaa sii dheer waxaa lagu yiri naagta madaxweynaha ah waxaa ku fiican inaad samaysatid bodyguard fiican macnaha dad fiican oo ku difaaca oo bodyguard fiican samaysaa la yiri sababtoo ah nimankii aad soo kaxaysatay oo bodyguardka ahaa waxba kaama inaan qaban meesha waxba ma inaan samaynin ninkii intuu intaas oo dhan sameynayay oo wadada dhexdeeda naagta saas ku sameynayay way taagnaayeen marka iyada iska qabatay kadib iyaga qabteen intii hore oo dhanna waa daawanayeen marka waxaa la yiri nimankaas kuma anfacayaan bodyguard fiican samayso oo ku difaaca naagtan madaxweynaha ah sanadkii la soo dhaafay sanadin sheegay ee qabsatay nin kale hayay xukunka iyada naagtii ugu horeysay oo qabsatay way oo madaxweyne ka noqotay dalkaas markay qabsatay waxaa lagula taliyay waagaas inay bodyguard fiican samaysato waxay dadka ku tiri markii la yiri bodyguard fiican samayso waliba dad badan ha ku difaacana bodyguard qabso waxay tiri maya aniga dadkayga ma rabo inaan iska xijaabo bulshadeeda waxaan rabaa dadka aan madaxda u ahay inaan maaragtay aan bulshada dhex galo oo aanan dareemin maaragtay in xijaab aniga iyaga noo dhaxeeyo aan rabaa maantana waxaana ku dhacay marka waxaa dadkii yiraahdeen waxaa ku wanaagsan inaad hadda iyo wixii ka dambeeya inaad ka taxadartid oo aad samaysatid bodyguard fiican oo ku difaaca sidan xalku ma aha
marka ma naqaano inay taladaas qaadanayso bodyguard fiican samaysan doonto in kale laakiin kor iyo hoos ninkii tallaaban ka qaadaya ay tiri waana la sugayaa barnaamijkan Danger Show waxaan badanaa ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyay kuwa ugu xiisaha lahaa kuwa ugu qosolka badnaa waxaan kaloo ku soo qaadanaa wararka tooska u taabanaya ee Soomaalida meel kasta ay joogto laakiin si gaar ah waxaan uga hadalnaa bulshada Soomaaliyeed ee degan ama ku dhaqan North America channelkeen hadduu yahay markii ugu horeysa soo booqatay waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow haddaadan subscribe noo ahayn subscribe noo noqo asxaabtaada la share garee haddii aad horey noola socotayna waxaan ku leenahay mar kale gacmo furan ku soo dhawaada waa ku mahadsantihiin daawashadiina intaan barnaamijkeena kale dib ugu kulmi doonno waa anigoo Basra Bilan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo